سيقول حفلتنا أما دافور كنا نعاود حكوسة سياحي أنا أقوها الله يبودي قبل قارضها وحكوسة سياحي براها كان عصتها الصوماليات ودوان لبسي وإن شاء الله حديث ربي إدمه مالها صوص على الشقة قليلة أي وحى الله سمعنا يا دافور أنا أقوها الله يبودي قبل قارضها مقعوضة وحن الله يسوع هذا كسر هذا دافور كبراها كان عصتها الصوماليات. Ulusun, her milletin dünya üzerinde kendine çok yakın gördüğü, çok yakın hissettiği, kardeşlerim diyebileceği başka uluslar ve milletler olur. Somali de bizim açımızdan kardeş diyebileceğimiz çok önemli uluslardan, ülkelerden bir tanesi. Waddan walba waxaa jiro dad uu arko inay aada muhiim u yihiin walaalo yihiin waxaa jirto dad aan u dareensannahay inay yihiin dad noo dhow oo mar si dhow aan ula kulanno dadkaas wax dadka kamid a waddamada kamid a Soomaaliya waxay ka tirsan tahay waddamadaas dhammaan martida oo ugu horeeyo qusulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga mudane Suleymaan Kaarshe sidoo kale uqaabilsanaha arrimaha ganacsiga Miss Nardiya gudoomiye hore ee baarlamaanka Puntland mudane gudoomiye Loba gudoomiyaha golaha dhexe ee Istanbul mudane Maxamed Kuku gudoomiye hore ee ganacsatada Ankara Masar Cabdilfataax sidoo kale sheekheena weyn oo aad taqaaniin oo ka dhasheegid sidoo kale akhyaarta dhinaca fadhido Sergio Masar Guule waxaan saxa aniga xilka aan ahay waxa waa gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ma aha gudoomiye qaalida waxaan rabaa inaan u guda galo dad badan oo maanta caawa martiye raba inaan fahamsiino waxa loo jeedo sabkod caawa meesha ku qoran ama daafurka programka sabkod waa kelimada aan usoo gaabinay Somali Business Council ayaan ugu talagalnay ujeedada loo aasaasay iyo hadafkeeda waxaa waaye golaha ganacsatada markaan aragnay anagoo ganacsatada ugu badan magaalada degan dhibaatadii ka dhacday Ankara ee saameynta xoog la gaarsiisay ganacsatadii iyo guud ahaan culayska ku wajahan maalmahan dambe ajaanibta guud ahaan waana golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga aqoonsi diiwaangelineed ee sharciyeedna ka haysto safaaradda Soomaalida ee dalka Turkiga runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa gudoomiye Ibrahim caawan waxaan ka balaqaaday inaan cimaamad saaro oo aan ku cimaamad saaro gudoomiyadiis aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan ku mahadnaqayaa ciddii soo diyaarisay laba qodob baan doonayaa inaan kaga qayb qaato kulankan quruxda badan qodobka koowaad shareecadeenna islaamka iyo qaabka ay u dhigtay ganacsiga inaan wax yar aan idinka xusuusiyo culummadu cilmiga waxay u qaybiyaan labo mid waxaa la yidhahdaa fardul cayn midna waxaa la yidhahdaa fardul kifaaya keliya waxaa iskugu nimaanay inaan ka tashano arrimaheena mustaqbalka ee ganacsiga dalka Turkiga kolley dhammaan asxaabta ugu horeeyo qusul Kaarshe meesha hadduu imaado war kale ma jiro waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo daafurka golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga oo xaqiiqdii in badan Ibrahim aan waqtiyo dambe aan telefoonka isu gaari jirnay si hawshan ay u suuroobi lahayd caawitana farxad gaara ay noo tahay inaan barnaamijkii aan joodiga kusoo bixinay aan daafurayno salaam kadib warka qiimihiisii iyo muhiimadiisii dadka iga horeeyay ayaa dhaheen waxaan aniguna xoojinayaa taageerayaa gudoomiyaha golaha ganacsatada dalka Turkiga mudane Ibrahim marka waxaan rajeynayaa maadaama safaaradda ay nala joogto inay hawshaas shaqo aad u weyn ay ka qabato sida dowladaha kaleeta ee waddanka joogo 3 qofood 2 qofood dadna maba la weydiiyaba barnaamijka markay sameysanayaan marka aad mahadsantiin kasoo qaybgalkiina waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye Ibrahim ilaahay kuu fududeeyo kugu hambalyeynaayo waa kugu duceynaa mas'uuliyadda qaaday السلام عليكم قفل بنفسك كيسي مجلس مشكو في اليوم السلام عليا
hadalka kuma dheeraanayo hadalka badankiisa waxaa qaadan doona qunsulkeena insha allah. waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ama soo dhaweeyo gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliya Ibrahim. runtii waxaan rabaa inaan ku daro wax yaraan ka hadlaya aniga inta kala dardaaran waxaa u deynayaa qunsulka. waxaan rabaa in aan kula dardaarmo ganacsatada inta fadhisa iyo inta ka maqanba inay kusoo biiraan golahan, soo dhaweeyaan, si fiican ula shaqeeyaan, register gareeyo si dhibka bili hadda magaalada Ankara dhibka ka dhacay oo sida Istanbul uga dhicin la noqdo dad isku duuban la shaqeeyo gudoomiyahooda insha Allah, si fiican ula shaqeeya oo soo dhaweeyo noqotiin. asna waxaan ka rajeynayaa insha Allah ganacsatada isku wada haayo ka safaarad ahaan marka ganacsatada isku duuban yihiin baa anaga la shaqeyn karnaa. aad baa mahadsantihiin dhammaantiin. salaamaya arrintan caawa markaan u fadhinaa waa daahfur. marka waxaad aamintaan golahan waa daahfur caawa waxaa loo daafuray ummadda Soomaaliyeed. in badan baan ka shaqeynay daraha ganacsatada iyo daraha jariyada. saaxiibkay waxaanu xasuusnay ganacsato la sameeyo ugu horeysay qofkii abaabulay baan ahaa. waxay kala shaqeynayay oo fadhiya Farxaan ninka la yidhaahdo Cabdifataax. habeenkii waxaan ku gaari jirnay kooda habeen ku gaari jirnay runaatii ilaa habeenkaa waxaynu sameynaa filayaa waxay dastuurka sameynay. waxay 2019 bishii 8aad bay ahayd. Istanbulna waxaanu nimo oo ka sameynay bishii 11aad. kulankii ugu horreeyay waxaan ku qabanay Ibrahim maqaaxiisi. runaatii maysa shaqeyn marka fulaxankii way sognay inaan lagu tuurataan dhib uma aragno oo inaan maagtan xaq waa u leedihiin intaas oo kaftan. runaatii anagu ka safaarad ahaan mas-uuliyadana saaran waxa weeye inaan dhiirigelino ganacsiga Soomaaliga, ganacsatada Soomaaliyeed inaan dhisno. haddaan dhisno waxay wax ka tarasaa run ahaantii awoodda ganacsatada Soomaaliyeed Turkiga ganacsanaysa. sidaynu ognahay dalka Turkiga dee waynu isla ognahay degaan la soo dego ama ganacsatada ugu soo degto waxaa ugu horreysay 17 waa hadda. runaatii maalinka sare waxaanu bilownay bishii 9 oo bilownay. waqtigeedii markaan isku daynayna runtii way socon weyday, duruuf kastoo jirtayba adigu way socon weyday. marka haddana waxa weeyaan in mar labaad boorka laga tafiy. laakiin waxaan ku qancay in shir dhacay, ganacsatadu shirtay, maxaan ku raday doorasho dhacday.